sidaan wada ognahay 1960kii ilaa sanadkan aynu ku jirno waxaa dalka soo maray 9 madaxweyne oo habab kala duwan ku yimid kursiga sida doorasho cod iyo qof ah afgambi iyo inay xildhibaano soo doorteen aadan cadde wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ku dhashay Xaradheere oo ka tirsan gobolka Mudug Siyaad Barre wuxuu ku dhashay Garbahaare oo ka tirsan gobolka Gedo Cali Mahdi wuxuu ku dhashay tuulada Cadawuul oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiqaasim wuxuu ku dhashay Dhuusamareeb oo ka tirsan gobolka Galgaduud Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ku dhashay Gaalkacyo oo ka tirsan gobolka Mudug Sheekh Shariif wuxuu ku dhashay Mahadaay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Xasan Sheekh wuxuu ku dhashay Jallaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan madaxweyne Farmaajo oo haatan xilka hayana wuxuu ku dhashay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waana madaxweynaha kaliya ee Muqdisho ku dhashay Cabdiqaasim waa shakhsiga kaliya ee golaha wasiirada xilal kala duwan ka soo qabtay isla markaana dalka madaxweyne ka noqday wuxuuna dawladdii kacaanka ka soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha gudaha wasiirka warfaafinta wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta wuxuuna ahaa wasiirka ugu daada yar burburkii dalka kadibna waa madaxweynaha kaliya ee asigoo xilka haya dawladda Itoobiya si cad ugu eedeeyay in ay faragelin ku hayso dalka Cali Mahdi wuxuu 1969kii ku biiray baarlamaanka Soomaaliya asigoona kolkaasi noqday xildhibaanka ugu daada yaraa ee ka tirsanaa golaha baarlamaanka wuxuuna xilka madaxweynenimo haleelay 1991dii asigoona durba wajahay dood iyo dagaal lagu diidan yahay madaxweynenimadiisa wuxuuna dagaal qaraar kala kulmay Generaal Ciidiid Cali Mahdi wuxuu xilkiisa ku ekaa 1995tii waxaana Ciidiid oo xilka ku haystayna la dilay 1996dii ilaa laga soo gaarayna sanadkii 2000 kursiga madaxweynenimo wuxuu ahaa mid booreystay oo aan cidna ku fadhiisan Siyaad Barre iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarkana waxay dhasheen labadooduba sanadka marka uu ahaa 1919kii Siyaad Barre iyo Cabdullaahi Yuusuf waa labada kaliya ee heer ka gaaray arrimaha ciidannimo kolkii uu Siyaad Barre afgambiga dalka kula wareegayna wuxuu xabsiga u taxaabay Cabdullaahi Yuusuf asigoo u xirnaa ilaa 1975tii balse Cabdullaahi Yuusuf waxaa ka dhicisoobay 1978dii afgambi uu maaganaa si uu xukunka uga tuuro Siyaad Barre wuxuuna u baxsaday dalka Kenya laakiin Cabdullaahi Yuusuf asigana wuxuu ku qasbay Sheekh Shariif inuu u baxsado dalka Kenya kadib markii ay dawladdiisii iyo ciidamo Itoobiyaan ka awood roonaadeen maxkamadihii Sheekh Shariifna waa uu soo rogaal celiyay asigoona Cabdullaahi Yuusuf xilka madaxweynenimo kala wareegay Siyaad Barre wuxuu ku geeriyooday 1995tii magaalada Lagos ee dalka Nigeria asigoo jira 75 sano halka uu Cabdullaahi Yuusuf ku geeriyooday 2012dii magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka waliba asigoo jira 78 sano wuxuuna sidoo kale aadan cadde ku geeriyooday 2007dii magaalada Nairobi asigoo jira 99 sano halka Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu yahay madaxweynaha kaliya ee la dilay waxaana la toogtay 15 Oktoobar 1969kii asigoo ah 50 jir Sheekh Shariif waa madaxweynaha ugu garan og diinta waana midka kaliya ee huwan darajada sheekhnimo inkastoo uu jiro Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen oo madaxweyne ku meel gaar ah noqday kadib markii la dilay Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuuna xilka hayay 15 Oktoobar 1969kii ilaa 21 Oktoobar 1969kii oo ah marka uu Siyaad Barre xukunka ku qabsaday afgambiga waxaa dhacday madaxweynayaashan in 4 kamid ah ay dalka mar qura ka noqdeen madaxweyne iyo ra'iisul wasaare sida aadan cadde oo mar madaxweyne ka noqday dalka isla markaana ra'iisul wasaare uu u noqday Cabdirashiid Cali Sharmaarke 1960kii ilaa 1964tii iyo Sheekh Shariif oo 2010kii xilka ra'iisul wasaare u magacaabay madaxweyne Farmaajo Xasan Sheekhna waa madaxweynaha kaliya ee ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sanadka marka uu ahaa 1981dii inkastoo madaxweyne Farmaajo uu dugsigiisa sare ku qaatay dugsigii farsamada gacanta ee Lafoole sidoo kale Xasan Sheekh waa madaxweynihii ugu horeeyay ee aan ku meel gaar ahayn ee Soomaaliya yeelato kadib burburkii madaxweyne aadan cadde wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya laakiin sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrika ee xilka u wareejiya si nabad ku dheehan tahay guud ahaan ma jiro madaxweyne laba jeer la doortay Siyaad Barre waa gooni oo waa uu ka duwan yahay dhammaantood oo wuxuu kursiga ku fadhiyay 21 sano